dowladda Jarmalku waxa ay sii wadi doontaa in ay barato hababka magangeliyada waddamada kale iyada oo rajaynaysa in ay hesho qaab ay u isticmaasho. Heshiiskii Talyaanigu la galay Albania iyo kan Ingiriiska ee Rwanda ayaa ka mid ahaa moodooyinka mar hore dib loo eegay. Dadka Talyaaniga iska dhiibay ayaa Albania la geynayaa halka Rwanda la geyn doono. Dadka Ingiriiska iska soo dhiiba Jarmalku wuxuu qorshaynayaa dadka iska soo dhiiba in uu geeyo Aasiya ama Afrika dal ka mid ah. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka ayaa u xaqiijiyey hogaamiyayaasha dowlad goboleedyada Jarmalka in baaritaanka nidaamka magangeliyada ee waddamada saddexaad uu sii socon doono. Waxaa jira heshiis adag oo lagu sii wado geedi socodka. Ra'iisul wasaaraha wuxuu yidhi fiidnimadii Khamiista kadib kulan uu la yeeshay madax dowladeed oo ka dhacay Berlin. Ra'iisul wasaaraha ayaa intaa ku daray in uu doonayo in uu soo jeedintiisa ku soo bandhigo shirka soo socda ee madaxda dowladda federaalka iyo 12 dowlad goboleedyada ee bisha Disembar. Nidaamkee ayaa dib loo eegayaa. Ka hor kulanka Khamiista, gobolladu waxay ku baaqeen in dib u eegis lagu sameeyo qaababka la taaban karo ee ka baaraan dhigidda magangeliyo ee dalalka saddexaad. Sidaas darteed, wasaaradda arrimaha gudaha waxay la tashatay khubaro ku saabsan dib u eegista sheegashada magangeliyada ee dalalka saddexaad. Tani waxay inta badan ku salaysnayd qorshaha Ingiriiska ee nidaamka magangeliyada ee Rwanda iyo heshiiskii Talyaaniga ee habraacyada magangeliyada Albania. Inta badan khubarada si kastaba ha ahaatee waxay ka shakiyeen u wareejinta Jarmalka iyaga oo tilmaamaya caqabadaha sare ee sharciga iyo waxqabadka. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka ma uusan doonaynin inuu qiyaaso qaabka loo isticmaali karo. Jarmalka hadda si taxadar leh ayaa loo baari doonaa, ayuu yidhi. Wasiirka arrimaha gudaha Nandi Fasar ayaa sheegtay in ka baaraan degidda dacwadaha magangeliyo ee waddanka saddexaad ay noqon karto dhisdhis siyaasadda socdaalka Jarmalka, laakiin waxay intaas ku dartay in aanay waxba ka beddeli doonin xaaladda socdaalka ee Jarmalka ama aanay saamayn doonin tirada dadka magangeliyo ku arkaya waddanka. Sidoo kale ma cadda in uu jiro waddan u diyaarsan in uu qaabilo magangeliyo doonka Jarmalka. Maxay yidhaahdeen hogaamiyayaasha? Guddoomiyaha gobolka Saxony Stefan Weil, oo ka tirsan xisbiga Sooshaaldemokraaterna bidixda dhexe ee ra'iisul wasaaraha Jarmalka ayaa weli ka walaacsan in dibadda loo soo saaro habaynta codsiyada magangeliyada. Dhegaysiga khabiirku wuxuu keenay su'aalo taxane ah oo dhan, ayuu yidhi. Waxa uu kula taliyey in laga digtoonaado cid kasta oo u qaadanaysa in baadhista noocaasi ahi ay keento natiijo wanaagsan. Ra'iisul wasaaraha Bohosheim, oo xubin ka ah xisbiga muxaafidka ah ee midowda dimuqraadiyadiga ayaa dhanka kale ku qancay in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada aysan ku joogsan doonin fikradaha khabiirada, laakiin hadda waxay soo bandhigi doonaan qaababyo iyo soo jeedinno la taaban karo oo ku saabsan hirgelinta. Hein wuxuu ka hadlay Milestone, jidka lagu go'aaminayo habka la taaban karo ee Jarmalka.